isagoo warbaahinta kula hadlayay xafiiskiisa Muqdisho wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee xukuumadda Soomaaliya Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen ayuu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku guuleysatay in xayiraadii laga qaado xoolaha Soomaaliya loo dhoofin jiray dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya. wasiirka ayaa tilmaamay in si loo qaado xayiraadan xoolaha Soomaaliya ee xiriiro badan kala sameeyeen wasaaradaha ku shaqada leh ee dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya. wasiir Xuseen ayaa xusay in xayiraadii dhoofka xoolaha Soomaaliya ee sanadkan dalka Sacuudi Carabiya laga qaaday muusinka xajka sanadkan 2019 isagoo dhinaca kalena tilmaamay in wasaaradda xanaanada xoolaha ee Soomaaliya iyo wasaaradda beeraha ee dalka Sacuudiga uu socdo wada hadal ku saabsan sidii guud ahaan looga qaadi lahaa xayiraadda dhoofka xoolaha Soomaaliya isagoo intaa ku daray in hawshaasi meel gabagaba ay marayso. wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda shaqo waxay u howlgashay in xayiraadda laga qaado xoolaha Soomaaliya ee aan u dhoofino dalka boqortooyada Sacuudiga iyadoo kaashanaysa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre. xiriiro badan oo aan la sameynay wasaaradda dhigeena ah ee dalka Sacuudiga kadib wafdi uu hogaaminayo ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda oo ayna kamid ahaayeen wasiirada xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa uu safar ku tagay dalka Sacuudiga bishii Febraayo ee sanadkan gudihiisa iyadoo si qoto dheer looga wada hadlay in xoolaha Soomaaliyeed laga qaado xayiraadda soo noqnoqota waxaana la isku afgartay in si wadajir ah labada dhinac ay uga wada shaqeeyaan si aanay xayiraadaasi ay dib ugu soo laabanin. waxaan halkan ugu soo jeedinayaa shacabka Soomaaliyeed xoolo dhaqatada Soomaaliyeed ganacsatada iyo ciddii ku howlan arrimaha dhoofka xoolaha Soomaaliya in ay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ay ku guuleysatay in xayiraadii dhoofka xoolaha ee Soomaaliya ee dalka Sacuudiga saarneyd in laga qaaday waqtiga xajka ah ee sanadkan 2019 iyadoo wasaaraddeena iyo wasaaradda beeraha ee dalka Sacuudigana ay noo socoto sidii guud ahaan looga qaadi lahaa xayiraadda oo taasoo hadda meel wanaagsan noo maraysa dhawaanna aan idin soo socodsiin doono. dhinaca kale wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowladda Soomaaliya Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen ayaa shacabka Soomaaliyeed ee daneynaya arrimaha xoolaha Soomaaliya iyo ganacsatada ka codsaday inay kala shaqeeyaan horumarinta caafimaadka iyo fulinta dhoofka xoolaha Soomaaliya. anigoo la qaybsanaya farxaddan shacabka Soomaaliyeed inta danaysa xoolaha Soomaaliyeed waxaan idinka codsanayaa in aad nagala shaqeysaan horumarinta caafimaadka iyo halbeegyada caalamiga ah ee international standards ee la xiriira dhoofka xoolaha Soomaaliya iyadoo danta gaar ah aan ka horumarinayno danta guud ee ummadda Soomaaliyeed. dowladda boqortooyada Sacuudi Carabiya oo ahayd halka ugu badan ee loo dhoofin jiray xoolaha Soomaaliya ayaa goor sii horeysay xayiraad saartay xoolaha uga iman jiray Soomaaliya balse hadda dowladda Soomaaliya ayaa tilmaantay in arrintaasi goordhow la soo afjari doono dibna xayiraad looga qaadi doono xoolaha Soomaaliya. maxamed qays xasan maxamed on cable TV magaalada Muqdisho. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.